haddaan ummadayda khayr u leeyahay allah ay fududeeyo labada doorashaba haddii aan khayr u lahayna allah iga joojiyo waayo ummadani lugooyo taaguma hayso way soo aragtay intii soo arki karaysay marka anigu in advance baan ka sii ducaysanayaa haddii aanan ummadayda khayr u lahayn haddaanan ahayn kii hargeysa bedeli lahaa allaba ima keeno xildhibaanada dhexdooda allaba igama dhiga kala doorto haddaan saa ahay ilaahay baa ugu xamaqane haddaan ahay qof hargeysa bedeli kara oo tartanka ay magaalooyinka adduunka ay la gelaysa gelin kara ilaahay baan ka baryaa inuu ii fudeediyo dadkaygana waxaan ilaahay u weydiinayaa inay midnimo iyo isjacayl iyo hargeysanimadu ka weynaato qolada iyo qabiilka. Cabdikariin Axmed Mooge waa mid ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland kaasi oo ku dhex milmay bulshada waana nin ka waraysta dareenka bulshada iyo sida ay u arkaan bal haddii uu maayir noqon karo in badan wuxuu tegay sariibadaha iyo meelaha ay dadka reer Soomaaliland ee danyartii ku ganacsadaan isagoo codkooda weydiistay haatan wuxuuba ku soo baxay musharaxa ugu codka badan golaha deegaanka doorashadii ka dhacday Soomaaliland 31 bishii May 2021 waana musharaxii ugu codka badnaa Soomaaliland dhammaan intii doorashooyin soo dhacayeen 7 doorasho oo Soomaaliland ka dhacay ma jiro qof gaadhay 27,000 oo cod waana tirada uu ku soo baxay Cabdikariin Axmed Mooge oo loo saadaalinayo maayarka cusub ee Soomaaliland haddaba xildhibaanada qaar oo sii hadlayba waxay sheegeen inay ku ixtiraami doonaan codka uu ku soo baxay iyo dareenka bulshada waana Cabdikariin Axmed Mooge markiisii horeba doonayay inuu horumariyo caasimaduna haatan waxay la dhacaysaa dhibaatooyin xagga roobka isla markaasina aan biyuhu si fiican uga baxayn magaalada Hargeysa wax drainage oo qaada biyaha ma lahan isla markaasina geeya meelihii loogu talagalay haddaba Cabdikariin Axmed Mooge wuxuu sheegay inuu wax badan ka bedeli doono caasimadda waana kaliya loo dhagtaagayo arrintaasi isla markaasina ay bulshada codkeedii ugu hortay haddaba bulshada Soomaaliland ayaa ogaatay inaysan qabiil waxba ku dooran karin isla markaasina ay doonayaan inay ku doortaan qofka waxqabadkiisa inuu sii sheego inta uusan xilka qaban ka hor ama aan la dooranba ka hor waayo taa waxa ku cadaynaysa Barkhad Jaamac Batuun oo isagu sii sheegay waxa uu qaban doono iyo Cabdikariin Axmed Mooge oo isna sii sheegay waxa uu qaban doono waxay noqdeen labadii nin ee ugu codka badnaa Soomaaliland iyo magaalada Hargeysa sababtaas ka dhigtay in la doorto Cabdikariin Axmed Mooge iyo Barkhad Batuun arrinta kaliya wadada u jeexaysay inaysan siyaasiyiintu isku hadlaynin qabiil isla markaasina ay kartidooda hadal iyo wax sheegad soo bandhigaan inta ay ololaha ku jiraan daawada waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto kanaalka like na saarto si uu fiidiyow dad badan u gaadho. Salam.